Gor gor. Gor gor. Guulaysta. Taliyaha warkii rasmiga ahaa sheegay waxaan u soconnay ilaa Ceeldheer meel ka shaysa aan uga nimid oo halkaa looga soo bilaabay haddana lagu noqon doonaa dhulka kale oo dhan la mari doonaa waxay ahayd in la isku sheego diyaar garow furmo oo dhanna waa laga diyaar garoobaya haddii la yiraahdo markaana waa kaba dambays markaan gacan haddii la saaro gacantaasi waa inay kululaataa aag walbana waa ka kulusha marka waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado waxaa jirta sumcadda la samaynayo iyo ciidankeenna isku xirkiisa dad oo warbixinno xun soo saaraya maalin dhoweyd international crisis group niman la yidhaahdo warbixin aad u xun aad u qaab daran aad u fool xun cay ku ah ciidankeenna cay ku ah waddankeenna cay ku ah dalkeenna iyo dadkeenna cay ku ah shuhadadii ayay soo saareen nimankaasi waxay ku saabsanayd dagaalka dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ay kula jiraan argagixisada al-shabaab warbixintaasi waxaa ka buuxay khalad weyn sidaa sheegnay ma dheelitirnayn mid marin habaabin badan ka muuqatana way ahayd mid u gafaysa shuhadadii dhaawicii iyo dhimashadii dadka Soomaaliyeed gaaray iyo ciidankeenna ayay ahayd maxay yiraahdeen waxay yiraahdeen al-shabaab iskood ayay waxay u noqonayaan koox dabacsan oo macquula koox macquula macnaheedu waxaa la rabaa argagixisanimadii magacii argagixisada ee adduunka u yaqaanay in xoogaa laga khafiifiye rabeen waxay yiraahdeen kooxdaasi waxa waayadan badan dambe soo gashay naxariis badan niman naxariis leh bay noqdeen waasay leeyihiin hadalkaasi runtii waa mid aan waxba kaba jirin waa mid meel dhac ku ah shuhadadii ciidankeenna shacabkii Soomaaliyeed ay laayeen dadkii xoolahooda ay dhaceen dadkii guryahooda beerahooda ay gubeen dadkii hoteeladooda ay gubeen arrin warbixin gaf ku ah waaye oo hay'adaas ka dhacday international crisis group liiraad al-shabaab uma yarayn naxariisna ma ahan waxoodu waxa weeye xanuunka iyo culayska ciidankeennu saaray ciidankeenna iyo shacabka Soomaaliyeed culayskay saareen ayaa gafuurkaas yarkaa ka soo saartay oo la arkay ayaa ka soo saartay inay noqdaan kuwa weak ah madaxdoodii baa la beegsaday ayagii baa maalin kasta la laynayaa ciidankeennaana furmaha ku sugan geeska gees Soomaaliya kulaylkaas iyo culayskaas xooggan oo gaaray awgiis ayay u daciifintaasna naxariis maaha xalay waxaan waraysanay wiil yar aniga taliyaha oo shalay ka yimid wiil yar oo reejamaama oo 19 sano jira waxaa la yiraahdaa Saciid Daawud Cabdulqaadir waa wiil yar wuxuu noo sheegay 300 iyo intaas oo tababar isla galeen inuu qofka labaad oo ugu weyn kooxdaas yahay macnihii inta kale waa caruur nimankaas caruurta yaryarka 14 jir 13 jir 15 jir ciidamaynaya ayay waxay leeyihiin niman naxariis badan waa arrintaasi wax ciidankeenna u qalma miyaa dadkeenna ma wax dhufaysyada waxaad ugu jirtaan in la faaniyo al-shabaab ciidankeennana ay faanin waayaan sacrifice-ka iyo nafti hurnimada ay samaynayaan ma wax loo dulqaadan karaa looma dulqaadan karo waxaan ku beeninaynaa marka shabaab la isqabsado ay arkaan shabaab inaysan naxariis badnayn waayo wuxuu noo sheegay wiilkaas 4 qofood kaliya meel 1,000 qofood ku noolayd oo nuur dugle tuulada 4 qofood kaliya ku nool oo dumar 3 dumar iyo hal nin 4taas kaliya ku nool hadday naxariis badan yihiin sida ICG ay sheegayso hadday naxariis badan yihiin aaway dadkii ku noolaa
tuulada nuur dugle aaway dadkii ku noolaa tuulooyinka kale iyo deegaamada kale dadkii oo dhan waa barakaceen dadka noocaasa ayay ku tilmaameen in naxariis badan yihiin inay dabacsan yihiin runtii arrintaasi ururka al-shabaabna wuxuu ka mid yahay ururada ugu khatarta badan argagixisada caalamka jirta nimankaas khatartooda inna la kugu sheega way naxariis leeyihiin wax loo dulqaadan kara maahan hay-addaasna wax laga yeelaya maaha waxaanan aaminsanahay inay dad xun xogtaas ka qaateen dad xun oo aan dalkeenna jeclayn oo ciidankeenna awooddiisa inkiraya dawladdeenna awooddeeda inkiraysa inay ka qaateen xogtaas muqdisho waad aragteen 200 kun oo qof inay isugu soo baxday 1 Juulaay habeenkeedii ma bilaash bay ku timid waxay leeyihiin bilaash bay ku timid naxariista al-shabaab kuma imaan wiilasha halkaan dhufaysyada ku jiray ku timid iyo gabdhaha dhufaysyada ku jira Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ee al-shabaab iska horeeyay ku timid arrintaas marka dad badan oo Soomaali siyaasiyiin isku sheegaya iyo kuwa kale oo hay'adahan oo kala ayaa burush wasaq leh dadkeenna halgankooda la daba taagan ona dulqaadan mayno qaadanna mayno waxayna ogaan doonaan al-shabaab markaan nadiifinno naxariis hadday leeyihiin ha qaataan ayagu been weeye naxariisna ma jirto waxaan idin leeyahay waxaad buruuf garaysaan dad badan oo cadow ku ah dalkan inay ka naxaan guulaha ciidankeennu gaarayaan inay ka naxaan dalkeenna horumarkuu ku socdo markaasna inay gadaal waa kuwii dhufaysyada xamar hubka la galoo kale xamar xaafadda barmuuda iyo marinaayo kuwii hubka la galayoo kale ay la mid yihiin oo rabay ciidanka inay dhabar jabiyaan oo ciidankan caasimaddiisii haddii la qabsado oo balaaya tagto hore looma socdeen ciidankeennu ha guulaysto gorgor ha guulaysato xoogga dalka guulaysta ilaahay ha idi ilaaliyo dalka Soomaaliyana Allah ilaaliyo intaad joogtaanna waa ilaalsan yahay